Xiddiga kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo ayaa markii labaad la arkay isagoo tuuraya goolkulaad rigooro in uu ku dhawaaqayo ereyga Bismillah oo ah magaca Eebbe ayaan ku bilaabayaa markii u dambeysay Bismillah uu adeegsadana waxa uu ahaa kulankii uu Portugal xalay la ciyaartay Croatia. Ronaldo ayaa goolkulaad ka dhaliyay waxa uuna xulka Portugal ku caawiyay inay u soo baxaan wareegga 16-aadka ee koobka kubadda cagta ee adduunka sida uu baahiyay telefishinka Al Arabiya. Cristiano Ronaldo ayaa tan iyo 2023 ka ciyaarayay horyaalka Sacuudiga waxa uuna waraysiyo kala duwan oo muddadaas uu bixiyay ku amaanay dhaqanka Sacuudiga ilaa qaar ka mid ah ciyaaryahanada kooxda Al Nassr ee Ronaldo uu ka tirsanay ay sheegeen in ay jirto suurtagalnimo la arki doono mustaqbalka dhow Ronaldo oo diinta suuban ee Islaamka qaatay. Ma doonaysaa inaad noqoto qof Quraanka Kariimka si sax u akhriya ku soo dhawow markaska barashada Quraanka Kariimka ee Darul Qur'an Online waxaad ka heli doontaa Quraanka Kariimka tajwiid iyo taxfiid ingaada Quraanka bilow ilaa heer sare ducooyinka muhiimka ah sida Xisnul Muslim. Faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa ka mid ah macallimiin khibrad u leh casharada online-ka meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon carruurta iyo dadka waaweyn labadaba waa la qaadanaya. Waxaa kaa hortaagan maanta bilow safarkaaga Quraanka Kariimka ha noqon qof dib u dhigta khayrka Alle. Diiwaangeli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamadda WhatsApp ee hoose.